gaarigan oo noqonaya gaarigii ugu horeeyay ee ka samaysan looxe lagu sameeyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo safarkii ugu horeeyay ku yimid degmada Sheekh oo ka soo kicitmay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. Sheekh Axmed Daad oo ah hindisaaga isagu sameeyay gaarigani oo aan kula kulanay degmada Sheekh ayaa ku xog warramay gaarigan yar ee looxa ah ee uu sameeyay waana kan isagoo ka hadlaya arrintaasi. maanta waxa aan warbixin yar oo kooban ka bixin doonaa gaarigii looxa ahaa ee aan sameeyay. gaarigaas oo ah gaarigii koobaad ee dalka lagu sameeyay guud ahaan qaaradda Afrika waxaan odhan karaa gaari looxa keligii baa ka jira. haddii laga iman waayo alleele mid yar waxaa jira mid yar oo nin South African uu sameeyay. gaarigaasna gaari yar buu ahaa. Chinaha midmid waa lagu sameeyay, Hindiya laba iyo wax noocaas waa lagu sameeyay, Mareykanka dhowr mid waa lagu sameeyay, laakiin qaaradda Afrika gaarigani waa kii koowaad baan odhan karaa. gaarigana aniga sameeyay, fikirkiisana aniga lahaa iyo ikhtiraacisa iyo qarashkiisaba. in yar oo wax yar oo dad aan ka yar qaaday ehela mooyaane wax kale oo gaarigaasi cid kale oo iga caawisay ma jirto. xagga farsamada gacanta qaybtan qoriga ee looxa waxa iga caawiyo ila sameeyay nin abtiya oo nijaara, laakiin inta kale aniga ayaa fariisiyay oo qaybtan wareega iyo mashiinka iyo taayirada iyo waxaas intoon fariisiyay ayaanu dabeetana waxaan ku sameynay caqaayad qori casa. kadib aan dabeetana saarnay qorigii aanu saarnay. fikirkaasina wuxuu igu dhashay rabadaan tan iminka aynu soo dhaafnay rabadaantii hore ayuu igu dhashay. dhowr bilood kadibna waaban bilaabayba hawshiisii. muddo koobanna wuu igu qaatay, 2 bilood buu gebigiisuba ku dhammaaday. waana gaarigii dabaaldegii lagu soo maray 18 Mayda. madaxweyne waad aragtaa waa gaarigii koowaad ee dalka lagu sameeyay. ujeeddada aanu sameeyeyna waxay ahayd in dadkan aan tuso in wax la qabsan karo oo wax la samaysan karo. hase yeeshee wax kale oo ka sii badanna waan samayn lahaa haddii aan helo taageero iyo in la gacan qabto. matalan waxaan ku tali jiraa inaan sameeyo diyaarado iyo dayax kamceedo. waxaa laga yaabaa maalmaha ka mid ah inaynu nuclear samaysano insha Allah. Sheekh Axmed Daad oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaanay markani noqonin markii ugu horeysay ee uu sameeyo gaari noocan oo kale ah, balse waxyaabo badan oo ikhtiraacay. Waa Faysal Aadan Ismaaciil, telefishinka qaranka Somaliland, degmada